الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno talaalka dalka Norway soo gaaray ee cudurka coronavirus-ka la iskaga talaalayo talaalka noocyadiisa iyo waqtiga dadweynuhu ay qaadanayaan oo qof walba laba jeer lagu talaalayo marka sida awadeed barnaamijkan gaarka ah waxa noogu martaa xildhibaan Shucayb Yaasiin Maxamed oo aan ka xog wareysanayno talaalka Norway yimi noocyadiisa bal Shucayb marka ugu horeysa bal nooga xog waran talaalada soo gaaray dalka Norway bal noocyada ay yihiin بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن كسلام يا محمد أديك إيو بالشدة تيفيك قرنك كحرم بقى أديات بدو سلامنتهين وصح هرايا وهذا النفرنتي دوين كي يمد وطنك دوينكو أما طلالكو وحويا لبا غيبات أيا مركي هراء أنت أبدا هر يمد taasina waxay ku xidhnayd ansixintii waayo kuwii ugu soo horeeyay la ansixiyay European Unionku ay soo ansixiyeen taasun baa Norwayna imanaysay marka sidaas darteed labada nooc ayaa yimid markii hore oo midna Pfizer ahayd midna Moderna ahayd labadaana ayaa lagu bilaabay dadka intii hore imaka already lagu bilaabay talaalka marka labadaas ayaa yimid waxaana jirta dawooyin kale ama talaal kale oo iyaguna ku soo jira dhexda ku soo jira oo ay u badan tahay in iyagana la ansixiyo shirkado badan ayaa imika diyaar u ah in la ansixiyo dawooyinkooda oo already iyaguna productionkii ku jira waxa jirta shirkadda Johnson & Johnson oo iyaduna talaalkeeda ballan qaaday in uu noqon doono mid mar uun dadka lagu mudo halka imika kuwa kale ee imika la isticmaalaa ay yihiin in laba jeer 22 cisho ay u dhaxayso dabeeto todobana lagu mudo marka laba jeer lagu mudo ayaa jira marka dawooyinku waxay kale yihiin noocyo badan laga yaabaa inay noocyo badan soo baxaan imika sida ay ku socoto shirkado badan ayaa codsaday in dawooyinkooda la ansixiyo marka dawooyin badan ayaa iyaga qudhoodu dhexda ku soo jira laakiin waxa ay eg tahay imika Norway oo kale in ay soo afjarmayso in ay dadkoo dhan wada gaadho muddo samarka soo socda ilaa iyo waqtigan imika aynu ku jirno uu talaalku socon doono Shucayb marka horena waan ku weydiiyay su'aashan dadku madda baa lagu talaalayaa mise waxa lagu talaalayaa magac waa loo kala horeysiiyay xuruufta magacyadooda mise daadii baa wali lagu wadaa bal wali dadweynaha may soo gaarin wali wax isbedel ma jiraan mise wali waa sidoo ba daadii la sugayaa in daadii loo kala horeeyo dadku dawooyinka waxay ama talaalka waxay u kala qaadanayaan barnaamijka talaalku wuxuu u dhigan yahay hab lala soo xiriirayo dadka laguna horeysiinayo dadka inta daada waaweyn ha ugu horeeyaan dadka guryaha ku jira ee guryaha xanaanada ama daryeelka aan idhaahdo gacanta lagu hayo 80 iyo wixii ka sareeya kuwaas oo imika badankoodii la gaarsiiyay khaasatan areadan Oslo iyo agagaarkeedaba runtii wadanka guud ahaan la wada gaarsiiyay badankiisa oo maaragtay gobol walba loo sameeyay meel oo dawadii ay gaadhay oo lana bilaabay talaalkiina uu bilaabmay runtii marka talaalku wuxuu kala ahaa qaybo de laba jeer waa in la talaalo qofkiiba marka taas imika tii labaad ayaa intooda badan ku socota goobaha daryeelka dadka waaweyn ay ku jiraan runtii shuruucda imika wadanka waa tii maalmo dhaweytoole bando khaas la geliyay bando adag la geliyay waxa iska bedelay in caruurta dhalinyarta yaryar iyo iskuulada hoose iyo la soo yara dabciyo taas imika markaa shuruucdii iyo waxa isbarbar socda talaalkii ayaa isgarab cararaya taasoo dabeeto la soo yara dabcinayo imika meelihii xanaanadu ay iska soconayaan iskuulkii hoose uu soconaya sportska arrimaha sportska ee caruurta dhalinyarta yaryar oo dhan way soconayaan way furan yihiin waxoogay taas isbedeshay imika dad badan ayaa warwar ka qaba oo baqdin talaalka inuu dhibaato leeyahay ilaahay naguma keene dad badan baa baqdin ka qaba oo haday noqoto YouTube-kii iyo media-kii wixii la marinayo dad badan oo dhakhaatiiro badan baa leh
waxaan uma wanaagsanaa waxaan waa qaar waxay leeyihin waa sax halkaa waxaa ka jira isfahan la-aan bal dadka maxaad oran lahayd mar hadday adigu dee xogtii wasaaradda caafimaadka had iyo jeer aad heshaan oo laydii soo gudbiyo bal maxaad oran lahayd dawooyinkan maanta socda maxaad oran lahayd waa run dad badan ayaa runtii tallaalka ka qaba baqdi badan oo ama warwar badan iyo warar badan oo maaragtay aan islahayn ay ka soo gaadhayaan markay noqoto tallaalka taasina runtii inteeda badan runtii horta waxay ku lug leedahay war aan magaranaysaa sax ahayn ayay ku lug leedahay iyo dadkii oon tallaalkan hore u aqoonin oo runtii oon la yaab lahayn oo dee wax cusub oo ay ku tahay imika magaranaysaa intii xanuunkani uu inala soo dirsay uun magaranaysaa dee tallaalkan la abuuray oo la sameeyey oo dabeetana hore loo isticmaalayo oon sababahaas ayaa keenay sheekooyin fara badan oo qaar badani aanay sal iyo raatoona lahayn runtii horta wixii aynaan de inagu ogeyn maanta ilaahay unbaa og marka laakiin tallaalku waxa weeyaan maanta waxa weeyaan dawo lasoo diyaariyey oo runtii taas markaynu dhinaceeda kale markaynu eegno koroonuhu maanta 2 milyan iyo badh ayuu adduunka sabab ilaahay uga dhigay oo naftoodii ku waayey oo taasoo ay yihiin dad badan oo maaragtay ama waayeela ama xanuuno hore leh ama magaranaysaa aduu si kasta ha ahaatee uu khatar ku noqday oo markaa sababtaasina waxa weeyaan sababta sida degdega ah ama dee dawadan tallaalkani uu u yimid taasoo runtii ay badbaadadeedu badan tahay dawo kastana ay iyadoo dee side effect leh haddana markaa tallaalku waxa weeyaan anigu waxaan kula dardaarmi lahaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka in bulshooyinkooda kale kala duwanba in tallaalka la qaato ayaan kula dardaarmi lahaa waayo ma jiro mowduuc kale oo ka duwan oo odhanayo tallaalka yaan la qaadanin oo la odhan karo waa sax ugu dambeyntii Shucayb mar haddaynu had iyo jeer kaa xog wareysano xanuunku meeshuu marayo iyo dawooyinka kusoo kordhay iyo halka arrin marayo mar walbaanu kaa xog wareysano waayo mar haddaad tahay qofka keliya noogu jira golayaasha sida awoodeed baanu kugu soo noqnoqonaa waxaad noogu soo gabagabayn lahayd barnaamijkeena maanta gaarka aynu ku eegino tallaalada yimid dalka Norway waxaad noogu soo gabagabayn lahayd waxaan barnaamijkan maanta kusoo gabagabayn lahaa in sidii dadku ay mar walba xanuunka uga taxadiraan xanuunku mar walba imika ina la soo dirsay oo uu joogaa marka in lala noolaado sidii loola noolaan jiray sidii loola dhaqmi jiray in lagu dadaalo in wali dee aan maaragtay bulshada la isugu keenin meelo goobo aan xaflado waaweyn la samaysanin in sidii loo dadaalo ayaan dadka kula dardaarmaya tallaalkana in dee warqadihiisii laga yaabo in lagula soo xidhiidho sida ugu dhaqsaha badan leh marka inaad dee kasii yara fikirtid tallaalku muhiimadda uu leeyahay iyo inuu systemka iyo nolosho badankeedu dee ay furfuranto ayaa ku xidhan marka dee inuu qofku tallaalka qudhiisa kasii yara fikiro laga yaabo inay warqadi usoo dhacdo oo la yidhaahdo maanta waxa weeyaan waqtigaagii bay gaadhay tallaalka si aad dee uga sii yara magaranaysaa ugu sii diyaargarowdid marka aad iyo aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu